magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Axmed Degnaas ahna guddoomiyaha hay'adda Soweto waxaa la aasaasay 27 February 2019 waxaana lagu aasaasay magaalada Muqdisho waxaana aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed ujeedka loo aasaasay wuxuu ahaa ka caawinta dhalinyarada dhanka waxbarashada xirfadaha iyo shaqo abuuridda dhalinyarada Soomaaliyeed Soweto waxaa laga soo yareeyay Somali Youth Education Training Organization waxayna diiradda saartay boqolaal kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed sida loo bari lahaa xirfadaha ay ku shaqaysan karaan laguna garab istaagi lahaa hal-abuurkooda ganacsi. Hay'adda Soweto waxay ku bilowday barnaamijkeeda 3 maado kala ah kombiyuutar, caafimaad, saxaafad in muddo ah kadib waxaa u hirgashay inay ka qalin jebiyaan dufcadii koowaad ee hay'adda Soweto. Hay'adda Soweto waxay markii hore ka shaqay jirtay hal xarun oo ku taalo degmada Yaaqshiid. Haatan dib ayaa loo balaariyay xarumaha ay ku leedahay magaalada Muqdisho. xarunta labaad waxay ku leedahay degmada Yaaqshiid, xarunta labaad degmada Hilwa, xarunta saddexaad waxay ku leedahay degmada Kaaraan, xarunta afaraadna waxay ku taalaa degmada Howlwadaag. Dhanka xirfadaha, hay'adda Soweto waxay dib u habeyn ballaaran ku samaysay xirfadaha lagu barto xarumaha kala duwan ee hay'adda Soweto ku leedahay gobolka Banaadir. waxaana lagu soo kordhiyay maadada barashada shaybaarka, maadooyinka sayniska, xirfadda cilaansaarka iyo make-upka, Ingiriiska, Carabiga, Soomaaliga iyo cunno karinta harqaanka. Dhanka maamulka iyo macallimiinta, hay'addu waxay leedahay hab maamul ku salaysan isla xisaabtan iyo kormeer joogto ah. Sidoo kale waxaa ka howlgala macallimiin heer jaamacadeed iyo xirfadlayaal si gaar ah u tababaran. Hay'addu waxay shaqaalaysiisay qaar ka mid ah ardaydii ka aflaxday waxbarashada hay'adda, kuwaasoo isugu jira macallimiin iyo howlwadeenno. yoolka hay'adda Soweto waxay ku shaqaysaa Muqdisho. Sanadkan waxaanu qorsheynaynaa inay gaarto gobollada Soomaaliya si loo ballaariyo adeegyada waxbarashada iyo tababarada dhalinyarada Soomaaliyeed u samayso. Soweto waxay ka timid bulshada waxayna u timid bulshada. Dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu leenahay ku soo biira hay'adda Soweto. Dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, hablo iyo wiilal, mid wax bartay iyo mid aan wax baranin, waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan. Hadday bidixdu maqan tahay, midigtu micin ma laha.